بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعنا وناسن صاحب يال كسو دوادا وريسي gaar ahaan la yeelan doono ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta Higan Maxamuud Cabdinuur Meema wareysigan waxaan kaga hadli doonaa sababii keenay inuu kooxda Higan ka tago kooxdu ku biiri doono ayaan wareysigeena ku faaqidi doonaa ugu horreyn waxaan soo dhaweey doonaa Maxamuud Cabdinuur Meema soo dhawow aad ugu dhawaanaani baaqi sportiska ee Goal FM yada وماسنتها ميما سؤال دورة إنك ويدي دونا كوا دنبا سببي كينينا كوحدة كتكتو هيجن سؤال كودو حتى هاي سببتك كنت إن هيجن كتكتو بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn horta dan ka hadlo inaaniyo siyaabo badan ah jiro koox looga tago kooxna marka la soo heshiis waxba ku soo heshiisa صح balse ani ahaan kooxda Higan waa koox weyn oo weligeyga ku rajeyn jiray inaan ciyaaro haddana waan soo ciyaaray waqti fiican oo soo qaatay horta ugu horeyn wareegga koowaad horyaalka markuu noo dhamaaday kadib kulay aniga go'aansaday inaan kooxda iskaga tago si nidaam oo macnaan oo aan jirin oo qof u eedeyno siyaabana ciyaaryahan uu ku tagaa waana dareemi kartaa kubaddaas waxaa kubadda adduunka sideeda waxaa loo ciyaaraa waxay tahay inaa soo muuqatid صح kooxda Higan intii karaanka tabarteeda waxa aan ku saaciidi karo oo tabarteeda ma kameeman waa ka saaciiday balse marar qaar adoo fiican macalinka dooqiisa aadana qanina jiro ciyaaryahankan waa qof shakhsi macnaha hal maskax leh kusoo talagalay inuu kooxdaas waxyaalo badan ka saaciido balse ani ahaan markaan dambe wareegii labaad waxaan aqoonay dooqi macalinka waan is afahmoynay أنا معنا كوحدة دباتيننا أو عدنا أنا إيدينا أيا قانصدين وريالك مركو جوكسين عن كوحدة سكيجا طبعا وهي هذا عيارة إن مالك لا قروح بدنا وقت في عنا كسيها لا يوم كسوق الجبي إن شاء الله. وقرتي إن أديك هيجن قندراس كل جو تقولين مصدقين سيد أديك محنا سود الدجي أنا كتبت حليان. والله واحد سود الدجي وحيتها هي أنا أديك هاد جول إفما جوكتها إن أكسو موقت التي مرة البوا مهم برنامج كذا كم موقت صح سومالي ودبعتوين بدن أسكت جرتو وهذا لقى هذا كرين وكارلا دادا دينا كلي وور بدن وحبن بطرة صح إن قف إددو معنا وكهذا الشيء ده هذا تساس وأنت اللي جسمه حكى في عنا صحن إن معنا مش سوى نكسن وقتكتو إلى إنه حاول شخصي كوحة كوين مرة البقاء هذا مهمة أديك جوان وقاعدة كرتنا كتكتد هدي هالمرة معناها هذه شقة هذا معناها وأقدر أنت إن معناها سي أن لو جديدة قانك كل هذا يكون حرنتها صح أنا هذا وحان كوحدة هي قام كأيدا يوم معناها أنيه كرو وحاس اللي يسمي معناها أو مش يكر لكن أنا أهان وحق قان صدي إن معناها أو بوسكي جوكت ذا مركا أن وعي أنا أسكي قد تجو أو كوحدة أنا معناها أو كوح أن لقب سواي حل عياراتك وهري وقرتي مهما وكوجنا هاي إنها تعياريان حفظ بدن مركز أوبن دكتي شيسكا إنها كتجسد مسيد دقيقة لجوا أقبلي مسي حوجها إن وضح ضلال لجوا فري تكله ما ما يكون يا حلي قاعد كوجا بيناي مركز ما يكون وسلسو جروا سلسو كشين أسوق هيك مثل هذا وجي مثل هذا ما الدوق هن ciyaaryahan kale oo ka fiican ama xirfadaada isku boos aatiin ma booskaada dhilisiinay mise xaalado kale ayaa jiray wallahi niyo hadan ka hadlo midda horta kooxda inaan kala tagno way soo jiitamaysay horyaalka markii kalbar u marayo sax waqti fiican aan ku bilowday kooxda Higan kaliya gool u dhalnamaanay hadii aan si loo fiiriyo goosgoosideeda ciyaarahayga dib loo eego kubada badan kulay waa ku saaciday inta karaankii waa dadaalay shakhsi kaligiisna kulay waa team dhan wax kama qabo karo waa la isku wada shaqeeyaa macalmahadna macalin fiican waaye oo daayar oo waqti isla soo qaadanay waa sida macalinka Manchester United iyo Ronaldo amal garoon isla soo galeen waana dareemi kartaa ciyaaryahan markuu meel ka tagayo kulay sabab awgeed ugu tagaa أنا ما أنت بينكم شيء لا يعني ورطة أنت ذلك ذلك عياريان لديه كرمه من توبرة كما قلنا كرا أم معناها ممن وعياريان اسكت دوري يقول الله بدون ليه كرا عدي وشيء كرت ماله صح بس وقت كان دم كهذا معناها بوسكي إن قف العيار سيو معلن كدوق ويا لكرا سيبوك وفهم كرا إن معناها وكدري مكرا إن معناها بوسكي جوك تدا وأدي فوس ورثة أما دي كلا من كلو كدور بدي كرا
meekonna macalin oo kooxdaas ciyaartooy badan ku saacida ciyaartooy badan geeyo waaye sanadka ugu horeysa waa sanad ugu horeysay team hadda Manchester United ka soo qaad waa aragtay ciyaartooy fara badan ay joogto waqti badan ay isla soo qaateen team qaar waxaa jira oo sanadka ugu horeysay ciyaartooy la keenayo isla sanadkaas macnaha ciyaartooyda isla qabsanin heegan kulli koox weyn oo macnaha raadinaysa in macnaha sidii horseed camal inay noqoto oo macnaha oo ciyaartooy awood badan inay noqoto sax sanadka ugu horeysana waa sanadka hadda wada imaanay waxaan loo baahnay ciyaartooyina waqti badan ay helaan sax anigana macnaha markaan dambe oo horyaalka lugta labaad loo soo laabtanay ma ku jirin shaxda macalinka sax marka waan macalin macnaha waxa ku qabsatay macalin shaqadiisa waaye farsamadaasi waaye marba waxa waaye nimbo tijaabista sax marka waa intaas arintaas waa gartay maxaa isku soo beegay maatinkaada ama bixitaankaada heegan iyo maatinka Cabdijoon wallahi horta Cabdijoon iyo aniga laba qof iska warqabta ma ahayn mana sheegi karo waqti oo imaanay kooxda balse aniga asi hortiisa baan go'aan qaatay hadduu imaado xataa in macnaha aniga kooxda aan ka tago macalinka dib hore isla soo shaqeynay dadka si bay wax u fasirtaan ciyaaryahan macalin isku dhacaan hadda waxa aan ka sheegto ma jirtaba anaaba go'aankaygu ah inaan ka tago hadduu sii joogayo xataa maana iskala hadleen waxaas hadda iskala hadleena xataa ani go'aankaygu wuxuu ah inaan kooxda kasii tago mama marka la yiraahdo Cabdijoon adii xiriirkiina min Elman min Horseed iyo labadaas koox kugu soo maamulay haddii aan qaldaneen xiriirka hadda noocee ayaa kala dhaxeeyay Cabdijoon والله horta ani macalin walba isoo leeliyo hadduu xun yahay hadduu wanaagsan yahay macalinkaygu waaye wiili waalidna mar walba wiilka fiican inuu madax hoose aadiyo ana macalin qofkii alif ku soo bilaaw ilaa ya ku geey waxa waa macalinkaagu waaye Cabdijoonna macalimiinta wadanka ugu fiican ku jira waxa hadana ka sheegtay ma jirto isku dhac way jiraan ciyaaryahan macalin isku dhacaan hore waa isgaarnay dib ugu heshiinay xilliga sidii joogtay ma isgaariseen horseedan joogay waa sababta keetina horseed ka tagtay horseed aan ka tago ilman ku biirtay ilman ma waa kooxdan heegan ku biirtay ku soo biiro sax ani waxa ay ciyaartooyda go'aan kale qaladkii waa aruursada marka qaladkii aruursadana kulay markii yani xilligii u dhamaado go'aan qaata ilaan kubadan inay lalato male kubadan Soomaaliya siyaasad badan ay leedahay marba meel isku bedesha inkasta oo macalimiinta iska dhib badin Soomaalida ciyaartooyda la dagaalamayaan ataagayaan أنا معناه أنتوس مع المين تصومالي أنا أتاجينا لكن سيادة أفيرزت يعني أهم حقيقة في عم علمين أجانب تقيقة في عم معناه يقانو بليرك حقوق دي حقيقة ومعناه قفك عيريان كذا سجعلي سيكرو ومعناه مرة والبكديه كردوحين يعني وناكسن لكن مع المين تصومالي أنت بدن ضد وحي بدين على القاقات له معناه وحي كوقبان معناه توسم كسو آدان دول كاسي كسو مرايان وحا أديك مركز كوكو سميرمان وحا كمغلي ميلا غار بلشد سبورتس كمغلي ومعناه qof shakhsi ku imaanayo iska taageeray dadka iska jecel oo ku dhahay hebel meesha saas ku dhahay marka cildaas ay leeyihiin macallimiinta ajaanibtina waxa ugu imaanay serious ugu imaanay wallahi dibeen ku sheegay ciyaartooyda dalka kulli waxay u kala ordayaan macallimiin ajaanibi u kala ordayaan inkastoo ani macallinkii ugu horeeyay macallin salaad oo ahay waxba caqabad aan kala kulmin oo macnaha macallin oo sidii wiilkiisa camal soo qof wal meesha ka soo baxo kulliyada ka soo baxo kulliyada oo dareema kara inuu wax ka yahay marka ani inta macallin Soomaali soo leelinay macallin salaad marka joogay si fiican u soo barbaar jiray qof fiican oo niid wanaagsan laakiin runtu yaqaana wuxuu asiga qabo wiji kugu imaana marka aniyo macallinka imaashiisa aniga kulli waxba kama warqabin go'aanka marro ah haduu imaalay iyo haduu joogi lahayd ani ma kala jeclaan laakiin in marro go'aan qaata wagartay isku dhicina adi Cabdijoon horseeda ku timid waxaan ognahay in Elman aad la soo guulaysto koobka Superkaba oo Cabdijoon macallin ku ahaa kadib Cabdijoon horseeda yimid horseeda la timid adina marka jaceelkii Elman uu ku ishay oo aad koobka isku soo qaadeen in ceebka horseed maxaa keenay imaamano ma adiga dhankaada oo mitalaanta mise xaalado kale ay jiro wallahi horta nin iyo mihi tababar oo goynaa ama meema tababarka maqana training la aan heeso intaan aniga horseedan ka soo tirsanay
keliya tababarkayga ana hal maalin kama maqnaa jirin sax horta nin naag ayagoo isqabo isjecel isfuraya ma garata sax adduunyadan bini'aadan iskana iska daciifaanahay laba qof oo xiriirka dhexeyso qof aan ogoleen sax marka maasha allah macalinkayga aniga cilman oo kula biiray sax waxaan kula biiray horseed ma sheegi kari laakiin wuxuu igula dagaalay ilaa hadda ani xataa ma cadday kari waxaan cadday kara ma aha weligeena ugu tago laba mar miya war isku qabsanay waana iskula imaanay koley waana iska qancin sax laakiin hoosh haddii meesha iska sii socotana waxaa waaye ani waa si marka u fiiriyey waa iskaga gaabsaday waxaa waaye waan haddii warka aad badisid oo dada kaa faa'iidaysa soomaalida waxaa waaye ninaa adi magacaaga ka xun sax ciyaartoy ha noqoto markii meel laisku wada imaado ninaa wuxuu rabaa inuu booskaaga ciyaaro wuxuu isku dayaa inuu macalinka ugu daro semberi inaa nin xun tahay uu ka dhaadhiciyo si adiga horumar u gaarin madax kor u qaadin siyaabooyin badan way jireen laakiin ani ilaa hadda waxa ma cadday kari waxa oo macnaha oo isku qabsanay waagaas haddii aniga oo waa ka hadla aan dhaano wax macnaha oo ani hadda aho ma aha laakiin dagaal waa iska jiraa adduunka ciyaartooy iyo macalin waa dhexmara laakiin ani waxaasaan samaysay ilaa hadda garbey malaayiga saaran ilaahay log ma ka warqabin laakiin ani hal dabeecadaan leeyahay waxay tanaaniyow ciyaartooy calo ku qaad kale miyihi marka isla markaas macnaha oo caroodo ciyaaryahan markii la fadhiisiyo wuu xanaaqa waan dareemi kartaa adduunka Leo Messi oo PSG jooga habeenaad macalinka salaanta u diiday waxa taas keenaysa waxay tahay bedel oo macalin ku sameeyay oo ka xanaaqay Soomaalian markii waxaas camal ficilkaas ama sameeyso macalinka loo keena saas u dhaay intuu dhaay marka macallimiinta qaar waxa waa iyagana si degnaan macnaha inay meeting kula sameeyaan kula fadhiistaan ma kala hadlayaan macnaha maxaa shal ku xanaaqday warkaas ay soo gaaray toos markii qofka waji la isku warimaado waxa labada qof haddii isku bogto ama macnaha oo isku jiri inay caafimaadaan laga yaabaa laakiin haddii adiga baraanka war soo maqasho lagu soo sheegay aniga imaadada xanaaqsan wixii ani aan sameyn ninkan waxa wax laga soo alifay inay tahay laga yaabo waa dhibaato way taas sax hadda Cabdi John maadaama uu macalin ku yahay xiriir ma kala dhaxeeya waa miswacdiin wallahi sports la wadiyay kulli waxa waaye xiriirka sports ma go'o mana laha qabiil iyo waji gooni ah sax ani ahaan hadii asiga dhankiisa xiriir oo ay ka tahay macnaha oo asiga dhankiisa ma sheegi kar laakiin ani ahaan macalinkii waaye mar walba ixtiraam qadarina waa waalidkaaga marwar qaar asoo ka gardaran yahay waa iga gardaranta ku dhaama garan sax haddana waxaan isku sheegay malana waa waqtigii waayihii kulli hadda waqtigii kubadda aan ka dhex bixi lahay labadan sano hartay haddaan ciyaar inaan kubadda ciyaaro aan ka fadhiisto xiliyadeedan maranaaba waxaa waaye hadda inaan qaato waaye macalinimada waxay tahay waa aragnimadeeda inaan qaato sax okay mama hadda da'daada waa aad u sii daayar tahay waqti kubadda laga fariisan lahaana maadan gaarin maxaa kugu dhilay marka in laba sano kadib aad kubadda cagta ka fariisatay wallahi naadiga kubadda inaad ka fadhiisatay danta kugu qasbayso danta kugu qasbayso Soomaali waa taqaanaa hadda waana dareemi kartaa ciyaartooy badan oo ani igu horeeyay waqti fiican ayagoo ku jira ciyaar karo garoomada ka baxeen saas ay tahay waxay tahay Soomaali hadda ka soo muuqatay 5 sano xiriir ah performance fiican ama waqti fiican aad ku soo qaadatid 3 sano aad ku darsatid waa 8 sano at least waxa lagu leeyahay bis waa ninkan way ka dhamaatay inta waay halaanka dibdada wax u taray male bala maskaxda laga dagaalama adoo maskax laga dagaalama macalinku uu sii dara waxa dareemay marar qaar adoo ciyaar karo oo sida u fudud oo kubadda xilligii kubadda oo dhalinyarada soo bixisay ka faa'iideysan leeday oo macnaha oo adi qofka way arag markuu yahay qof ilmo isla ciyaaraan xoogo waxa waay wax badan la iska faa'iideystaa sax marka ani xilliga kubadda uga baxay ma taagna laakiin kubadda Soomaali waxa mustaqbal ay leedahay mal hadii mustaqbal ay gaareen waxaan u sheerkay rag badan dadka hadda macallimiintana ay mustaqbal fiican ka gaari lahayn ani insha Allah waxaan rajaynayaa in macnaha waqti oo macnaha u sameeyso mustaqbal kala oo saa horumar ku gaari lahaa u sameeysto kubadna waqti fiican ku soo qaatinaaniyo xilliyada 10 sano ugu dambeysay ciyaartooyda ugu fiican dalka ku jiray waqti fiican ku soo qaatay waxaan dadka qaar nasiib u yeelna soo yeeshtay alxamdulillah dan maantana kulay waa waxa iga badan in la dhaho legend ama captain magaciigu uu sii taagnaado marka waxa waa intaas oo kubad Soomaali in ayuu ka dhax baxday
waxaa keenayo in micnaha lagu si baas lagu mar walba lagu ataago oo maskaxda lagala dagaalamo waxaan maskaxda laga ciyaara haddii lagaa dhaadhici micnaha haddii injury hataa sanad aa ku maqan tahay bis way Soomaaliya 2 sano sanad injury ku qaadatay bis waa lagu dhaha ninkii zero markaan waa ka dhamaatay balaa lagu dhaha adduunkana waa aragtay ciyaartooy badan oo hadda Milner Liverpool ciyaaro waa nin Angelino oo Juventus u dheelo Ronaldo Bonucci macnaha waxa waaye mar waxa jirto oo fudud ku dheelayso kubaddan aad yartahay lagu kala hagaayo macnaha lagu dhahay ninkan yaraanta level ku jirto way arag ma naqan yaraantii saas markii lagu wado hadda waxa u badan dadka in lagu dhaha markii kubadda adoo yar oo hafaflaad oo macnaha oo meel fudud meel ku aad waxa lagu dhaha weli aqligiis ma kala go'ayna lagu dhaha asaa way arag naqanay marka xilliga way arag marka gaartana waxa lagu dhaha biso ninkan mac salaam way arag badan had saas lagu dilo wallahi been ku sheego ciyaar karo marka la sheekeysatid marka waxa waaye cid oo hadda dabaqi idaara ka dhisatay ama asiindooyin ka gadatay majirka kubadda Soomaali magacaas besa laga faa'iidaa ma sha Allah alxamdulillah magacana ka faa'iiday intaas aan iga badan marka goorma kugu dhalatay inaad kubadda cagta ka fariisataadi wallahi waa igu dhalatay sababta hadda heegan markaan ka tagayo ugu dambeyn waqtigan isku qiimeystay haddii macnaha oo wadanka aan sii joogo waa sii joogay laakiin haddii wadanka ka sii tagana kulay waa waxyaalo badan aan ka sii hadla doonaa marka heegan markaan joogo igu dhalatay oo hadda heegan aan ka tagi rabay in kubadda cagtaba aan ka fadhiisto waa gartay hadda waxa lagu arkaa tababarka kooxda dekedaha waxaana lagu xaqlinaya in dekedaha ku biiraysid kooxda dekeda miyaa lagu xaqlinaya aad ku biiri kartaa mise kooxa kale wallahi hadda way iska muuqataa dekedaana ku biiray waana heshiinay bishan la soo dhaafay xataa salariga waa qaatay kooxda kubadda cagta dekeda ay dhama bis inaan ku biiro waana ii farxad in macnaha kooxda dekeda aan ku biiro hadda training kala qaad kaliya waxay dhimananiyo in la soo bandhigo saxaafadda lagu soo bandhigo inkastoo hadda suuqa heshiisyada aan fadhiisanan iyo Jana Daawudki hadda weli xilligiisa aan la sheegin kooxdan kubadda cagta dekedana weligii waa ku rajweynaa sanadkii hore inta heegan tagana xataa dekedana imaada rabay is afgarad la'aan iyo macna isfahan maamulka hore isfahmoynay ma sheegi karo waxa isku fahmoynaa kulay ayaga markaan horseed ka soo tagay rajadeeda ugu horeysana deked ku biira rabay wallahi waana dareemi kartaa Soomaali waa la iska daba shaqeeyaa marka dambe go'aankayga kala laabtay haddana anoo heegan warfadii ka soo qaatay asdahay labadeeda koox hore LLB Jinyo iyo Elman midkood inaan mid aan doorto aan ku biiro saaxiibadeeda qaali oo macnaha mar walba iska soo garab ciyaarnay Daawud Abdullahi Tawal iyo Captain Abbas Amin iyo Anwar Shakunda iyo xogayaha dekeda Quatar oo nin aad u shaqo badan oo ila soo xiriiray ayaga ay soo bandhigtayna macnaha oo kooxdan ku soo biiro waana dareemi kartaa kooxna waxa horta dhisi karta ciyaartooy dhisi karto ani hadda marka koox ka tirsanaa ciyaarankii wanaagsan aan arko in macnaha maamulka u bandhigo ninkaas oo aan anfaca kooxda aan ku biirana ciyaartooydaas aan macnaha igu dhiirigelisay inaan dekeda ku soo biiriyo iyo waxaan ka tagay Awali iyo Idris raggaas oo macnaha oo dhaxdooda codeen ishuureen ay sameeyeen macalinka markii loo bandhigay way arkay wuxuu dhahay wana anfaca sidii aan dekeda ugu biiray waa gartay sida caadiga waxa lagu gartay lambarka 7 dekedaha ku sii kara lambarka 7 ballanqaadkaas ma ku jiray markaad ku biiraysid wallahi horta wax lambarka ma kala heshin waana dareemi kartaa hadda mucjisada adduunka Leo Messi lambarka wato lambar 30 ayuu qaatay lambarna ma ciyaaro aan lambar 7 inta ku soo ciyaar karo ku soo ciyaaray laakiin waxaana wato saaxiibkii qaali walaalkiis Faisal Xasanshe دادر جل وأنا مستقبل له ومعناه وأنا فيصل يرجع قربه بدل كرو مستقبل كدمبو وهم كله كبدان عكتر إن وقت بدن كسيجرا ووقت بدن ولمن طبعا كسان صوص عطى عيار كرو مرك أصلا وتو أسي أهان معناه ونبرك وكوب شرفة ولا لكن أنا أسي أدي صوبته إنك استوي هاي إن مستقبل له هم كسيله كبدا نمبر كيسنا إنه كم موضوع أنا معناها مركز نمبركي مركز كواحد يصوب بندكتو أنا أسكقاته. وهذا بين كبدا عكتها. ما دام تكدي مقاوت كبيرة ما حد كده ربنا قاعد كرتا كوب جل دولة وصهريو.
wallahi dekada horta koox hadda markaas si u fiiriyo nidaamkeeda fadhiyo waaye sidii macnaha maamulka iyo ciyaartooyda macnaha sidii kooxda awoodeeda kusoo celi lahaayeen iskula shaqeynayaan waa si aad aan ula dhacay inta tababar la sameynayna kulli aan hadda kooxda ku cusbay waxa walba indhahan ka fiiriya dhigtaana ka dhageysta shaqadii unan gutaa ciyaartooy badan oo laacibiin way joogaan aan waraana joogo oo ah kooxda ninkii iyadoo meel xun marayso ka badbaadiyay Serie B Abbas Amina joogo dad qabiirina jooga arageen Daawud Cabdullaahi Tawaal wallahi si isku dhiirigelina isku guwaabina waxa ma leeyahay in horyaalka hadda hogaanka banaasi heysad sax meelna waxa lagu ciyaaraa moraal isjecel macallinkana macallin oo tababarkiisa iska ciidamano oo 2 saacadood tababarkaas uu qabsana 2 saacna hal daqiiqo kuma darsanayo hal daqiiqo ma ka hoos dhacayo laakiin tababar sax ah qaadanay oo adiga jirka u baahan yahay oo subaxii marka waaga mu bariyo qabanayso tababarkiisa ugu soo xiisayso waxa waaye tababarkaada u baahan oo ka joojina waan tababar sax ah qaadanay si professional ah wixiisna u qoran yahay ma aha wax markaas oo marka garoonka imaado ay ku soo deganayaan ma sax marka waa Jannah Daawud kana kulay ciyaartooy badan soo socto dekada kaliya Jannah Daawud ka maqan anna koob badan Jannah Daawud soo qaaday min jay min ay hale Jannah Daawud ka usii badana sax insha Allah intii karaanka tabarteeda waxa iska football waay marna waxa naqanay ninay u saaran tahay marna ninay ka dagaysaa sax laakiin tababarka meeshan socdo tababar ku kalsoonaay waay oo macnaha oo jirkeyga xataa uu qabsaday marka insha Allah waxaan rajeynaa in dekada Jannah Daawud ugu horeey aan kula guuleysto ilaahay insha Allah adow ma tahay Maxamuud Cabdinuur Meema ayaana maanta wareysiga gaarkaan la yeelanay ku aadanaaba sabiyo u tagay kooxda Hegan asiga iyo Cabdijoon xiriirka ka dhaxeeya kooxda ku biiri doono sheekooyin badan ayaana ka sheekaysan intaas ayna saaxiibayaal kusoo gabagabeynayna wareysiga gaarka aan la yeelanay ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta Hegan Maxamuud Cabdinuur Meema tan kulno asxaabay waa nuga Cabdi Rashid Abu Kanaaniya nabadino